بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what is a base lending rate oo loo soo gaabiyo BLR. Base lending rate waxaa sidoo kale loo yaqaanaa benchmark lending rate ama minimum lending rate, waana dulsaarka ugu hooseeya ama ugu yar oo uu bangi deyn ku siin karo macmiilka. Xaddiga ama percentage-ka dulsaarkana waxaa jaangooya ama xadida bangiga dhexe wadanka. Si aan u fahanno qeexidan aan isla aragno tusaalahan. Aan dhahno bangiga dhexe ee wadanka ayaa waxa uu go'aamiyey in BLR-ka uu yahay 2%. Haddaba bangi oo raba inuu deyn siiyo macmiil waxa uu ka dhiganayaa BLR-ka tixraac oo waxa uu macmiilka ku siinayaa deynta dulsaarka ah BLR lagu daray 2% oo dheerigan ah 2% waxa uu rabaa inuu bangiga iskaga daboolo qarashaadka, sidoo kale khataraha ka imaan kara dib u bixinta deynta ama credit risk oo kale iyo wixii la halmaala. Ogowna dulsaarkan dheeriga ah hadba waxaa loo fiiriyaa kalsoonida lagu qabo macmiilka ama credit worthiness of the borrower. Haddaan sii wadano tusaalaheeni oo aan 4 ku darno 2, totalka waxa uu noqonayaa 6%, waana qarashka dheeriga ah ama dulsaarka oo uu macmiilka lacagta $1,000 ah uga deynsada bangiga. Markii muddadii sanadka ahayd tusaale ahaan oo kale ay dhamaato ama la gaaro dib u bixintii deynta, waxaa laga rabaa macmiilka in uu bixiyo $1,000 ee asalka ahayd ama principalkii oo lagu daray $60, midaas oo ku timaaday $1,000 haddaan ku dhufanno eber lixdaana waa dulsaarkii ahayd percentage-ka oo aan ka dhignay decimal. Waxa ay noo soo baxaysa $60. Hadda adi ahaan xataa waa isku dayi kartaa. Haddii marka 1,000 iyo 60 aan isku darno waxay noo noqonaysaa totalkii $1,060. Dhanka kale macmiilka dan ayaa ugu jirta inay ogaadaan waa imisa BLR-ka oo waxa ay u adeegsadaan tixraac ay ku ogaan karaan dulsaarka ugu yar oo ay deyn uga qaadan karaan bangiga waa imisa. Fiiro gooni ah sidii aan horeyba uga soo hadalnay, isticmaalka interest rate-ka waa xaraam. Xog dheeraada oo ku saabsan credit worthiness of the borrower iyo credit risk fadlan ka dhigayso lifaaq hoose oo aan hadda ka hor uga soo hadalnay. Mahadsanidin, waa inoo mar kale haddii Rabbi idmo.